waad salaamantiin walaalayaal waan idin soo dhaweynayaa waxaan aad iyo aad idinkaga mahadinayaa inaad nala joogtaan mar kale inta aynu wada baranayno ereyga Ilaahay runta waxaynu ku soo dhex jirnay casharo aynu ku dhex maraynay gaar ahaan kitaabka Tawreedda oo ka tirsan kitaabka Quduuska waxaynu wax ka soo baranaynay nabiyadii Ilaahay casharkeennii kan ku horeeyay waxaynu ku soo baranay ama ku soo bilownay wax ku saabsan qisadii nebi Yuusuf waxaynu soo baranay inuu Yuusuf ahaa wiilkii 11aad ee nebi Yacquub oo lahaa 12 wiil waxaynu soo baranay casharkii ka horeeyay kan inuu Yuusuf riyooday oo ku riyooday in maalmaha kamida walaalihii iyo aabihii iyo xataa hooyadii oo isaga u sujuudaya waxaynu soo baranay Yuusuf oo riyooday oo ku riyooday walaalihii oo maalin u sujuudaya laakiin walaalihii taa may rumayn way ka xumaadeen laakiin maanta waxaynu arkaynaa in riyadaas oo run noqonaysa oo runtii dhacaysa oo si toosa loo arkayo oo walaalihii oo isaga xurmaynaya markaan leenahay way u sujuudayaan maaha inay caabudayaan laakiin isaga oo walaalihii ka sareeya oo madax u noqonaya oo ay xushmaynayaan waxaanu soo baranay in walaalihii ka waaweynaa Yuusuf ay aad u nabcaayeen oo ay ku sameeyeen silciyeen riyooyinkiisa daraadeed nacaybkoodii daraadeed ay waxay gaadhsiisay iyaga inay markii dambe ka iibiyaan Yuusuf niman wata awr ama bay'u mushtara oo meel maraya oo Bible-ku ugu yeedhay reer Ismaaciil ama Arab ah kuwaas oo iyaguna geeyay Masar geeyay kuwaas oo iyaguna ka sii iibiyay nin kamida saraakiishii u shaqayn jirtay Fircoon gaar ahaan ninkii haystay xabsiyada Fircoon faraacintu way badnaayeen laakiin wuxuu ahaa mid kamida Fircoonadii Masar xukumayay ee boqorka ka ahaa Yuusuf markastaba Ilaahay ayuu la socday oo uu adeecayay taas oo isaga mar kale ka dhigtay inuu noqdo mid hatta ninkii uu shaqaynayay shaqadiisa ku fiican oo daacad ah waayo Ilaahay ayuu isagu adeecsanaa marka Ilaahay adeecsan tahayna wax walba oo aad qabato way barakoobayaan waxaynu aragnay in naagtii Yuusuf sidoo kale uu ahaa nin qurux badan Bible-ku wuxuu oranayaa sheegaya Yuusuf inuu ahayn oo kaliya nin Ilaahay ku xidhan nin daacada nin shaqo badan nin wax ka soo gacantiisu ay taabataba ay barakoobaan laakiin se jirahaan wuxuu ahaa nin qurux badan taas oo keentay naagtii ninkii uu shaqayn jiray ee Fircoon sarkaalka uu ahaa inay Yuusuf jeclaato oo ay doonto inuu Yuusuf la seexato Yuusuf se wuu diiday waxaynu soo akhrinay aayadii aynu soo akhrinay aayad kamida waxay ahayd Yuusuf oo kule sidee baan u samayn karaa xumaantan weyn oo aan Ilaahay ugu dambaabaa marka Yuusuf wuxuu diiday in uu sinaysto marka Yuusuf naagtii dacwo been ay ku soo oogtay inuu isku dayay inuu kufsado ka bacdina Yuusuf waa la xidhay waxaynu aragnay in raaxadii yareed adduunka iyo dambigii uu Yuusuf ka doortay xabsi uu ku jiro waxaynu aragnay inuu Yuusuf noloshiisa fursadda ugu horeysa ama qiimaha ugu horeysa siin jiray Ilaahay waxaynu soo aragnay inuu Yuusuf ku jiray 2 sano xarigaas oo uu xabsi 2 sano ku jiray laakiin se intuu xabsiga ku jiray Ilaahay muu ilaawin Yuusuf laakiin se wuu la jiray xataa xabsiga dhexdiisa casharka waxaynu ku arkaynaa Yuusuf dalcintii la dalciyay oo laga soo saaray xabsigii oo noqonayo marka dambe nin maqaam sare ka jooga wadankiisa haddana aynu sii akhrino ereyga Ilaahay kitaabka Tawreedda buugga bilowgii cutubka 14aad aayadaha 1 ilaa 16 ereyga Ilaahay wuxuu oranayaa markii 2 sanadood oo dhamaatay ayuu Fircoon riyooday 2 sano markaa ayuu ku jiraa xabsiga Yuusuf oo wuxuu is arkay isagoo webiga ag taagan oo baleeg waxa webigii ka soo baxay 7 sac oo quruxsan oo cayilan oo waxay daaqeen cawskii dareemada ahaa markaas waxa dabadood
webigii ka soo baxay 7 sac oo kale oo foolxun ama weyd ah oo waxay is ag taageen sicihii kale ee webiga qarkiisa jooga markaasaa sicihii foosha xumaa oo weyd ahaa waxay cuneen 7 sac ee qurxooneyd oo cayilneyd kolkaasuu fircoon toosay markaasuu haddana seexday oo mar labaad ayuu riyooday oo wuxuu arkay 7 sabuul oo burburan oo wanaagsan oo ka soo baxay isku jirid oo bal eeg waxaa haddana ka soo daba baxay 7 sabuul oo xunxun oo ay dabayshii bari qalajisay markaasaa sabuuladii xunxumaa waxay liqeen 7 sabuul ee burburnayd kolkaasuu fircoon toosay oo wuxuu arkay inay riyo tahay oo subaxdii uu dhibaataysnaa ama uu welwelsanaa kolkaasuu cid u diray oo u wada yeedhay saaxiriintii Masar oo dhan iyo nimankii xigmadda lahaa oo dhan markaasaa fircoon u sheegay riyadiisii laakiin ma ay jirin mid fircoon u fasiri karaa markaasaa waxaa fircoon la hadlay kii madaxa u ahaa kuwa khamriga siin jiray isaga oo wuxuu ku yidhi maantaan xasuustay xabsiga yuusuf buu ninkaasi xabsiga kula jiray oo yuusuf oo riyooyinka fasira ayuu arki jiray maantaan xasuustay dembiyadaydii fircoonow adigoo u cadhaysnaa addoommadaada waxaad igu xabistay guriga madaxa waardiyayaasha oo waxaanu ahayn aniga iyo kii madaxa u ahaa kuwii wax dubi jiray oo markaasaanu isku habeen riyoonay aniga iyo isagiiba waxaanu ku riyoonay midkayo kastaba sidii riyadiisii fasirkeedu ahaa oo halkaasna waxaa nala joogay nin dhalinyaro ah oo cibraani ah oo yuhuud dhinaca ka yimi Israa'iil ama Yacquub dhalay oo madaxa waardiyayaasha adoon u ahaa markaasaanu isagii u sheegnay oo isna uu noo fasiray riyooyinka iyagii nin kastaba sidii riyadiisu ahayd buu ugu fasiray oo sidii uu noogu fasiray ayay noqotay aniga waxaa la igu soo celiyay meeshaydii isagiina waa la dildilay dabadeedna fircoon baa cid u diray oo u yeedhay yuusuf markaasay dhaqso uga soo bixiyeen god xabsigii kolkaasuu xirtay oo dharkiisii bedeshay oo uu u soo galay fircoon markaasaa fircoon wuxuu yuusuf ku yidhi riyaan ku riyooday mana jiro mid ii fasiri karaa oo waxaan maqlay in markii aad riyo maqashid aad fasiri kartid yuusufna fircoon buu u jawaabay oo ku yidhi taasu xaggayga ma aha laakiinse ilaah wuxuu fircoon siin doonaa jawaab nabadeed marka fircoon markuu riyooday waxaa nin xabsiga ay iskula jireen oo fircoon u shaqayn jiray oo ahaa ninka fircoon khamriga u sameeya iyo nin kale oo rootiga u duba ayaa la xidhnaa yuusuf marka riyooyin buu xabsiga ugu fasiray marka kii labadoodiba markii la soo daayay midkood waa la dildilay kii kale ayaa riyo xasuusanaya yuusuf baa markaa cid loo dirayaa fircoon baa leh ii fasir riyadayda yuusufna wuxuu leeyahay anigu ma fasiri karo laakiin ilaah riyadaada wuu fasiri doonaa wuxuuna ku siin doonaa wax nabada ayuu ku siin doonaa oo riyadu si fiican baad ayaan kuugu fasirayaa aynu sii wadno ereyga ilaahay waxaa dabadeed dhacaya isla cutubka 14aad ee bilowgii aayadaha 24 ilaa 57 ayaa waxaa ku qoran iyagana sida tan markaasaa sabuuladii xunxumaa waxay liqeen 7 sabuul oo wanaagsanayd markaasaan u sheegay saaxiriinta laakiinse ma uu jirin mid ii sheegi karay oo yuusuf wuxuu ku yidhi fircoon riyadaadu waa mid oo waxa ilaahay samaynayo ayuu kuu sheegay fircoonow 7 saac ee wanaagsan waa 7 sannadood 7 sabuul oo wanaagsuna waa 7 sannadood riyadu waa mid 7 saac oo weyda oo foosha xun oo ka soo daba baxay waa 7 sannadood oo haddana 7 sabuul oo maran oo dabayshii bari qalajisay waxay noqon doonaan 7 sannadood oo abaara taasu waa wixii aan kugula hadlay fircoonow waxa ilaah samaynayo ayuu ku tusay oo bal eeg waxaa dalka Masar oo dhan imanaya 7 sannadood oo barwaaqo ah oo dabadoodna waxaa dhici doona 7 sannadood oo abaara oo barwaaqadii oo dhanna waa laga iloobi doonaa dalka Masar markaasay abaartu dhulka dhammayn doontaa barwaaqadana dhulka laguma ogaan doono abaartaas ka dambaysta aawadeed
waayo waxay noqon doontaa mid aad u xun oo taas aawadeed riyadii laban laab bay kuu noqotay fircoonow maxaa yeelay waxaa amray ilaah oo weliba ilaah dhowaan buu samayn doonaa haddaba fircoonow waxaad doontaa nin caqli iyo xigmad leh oo u sarraysii dalka masar oo dhan tan yeel oo waxaad doorataa niman dalka u sarreeya oo waxaa 7 sannadood oo barwaaqada dhulka ka baxa inta shanaad ha ururiyeen oo cuntada oo dhan sannadahan wanaagsan oo imanaya ha ururiyeen hadhuudhkana ha kugu hoos kaydiyeen fircoonow oo intay cunto ahaan magaalooyinka u dhigaan ha ilaaliyeen cuntaduna kayd bay dalka u noqon doontaa 7 sannadood oo abaarta oo ka dhici doona dalka masar si aan dalku abaar ugu baabiin waxaasuna fircoon way la wanaagsanaadeen isaga iyo addoommadiisiiba markaasaa fircoon wuxuu addoommadiisii ku yidhi miyaynu heli karaynaa mid lamida kan oo ah nin ruuxa ilaah ku jiro markaasuu fircoon wuxuu yuusuf ku yidhi mar haddii ilaah ku tusay waxyaalahan oo dhan ma jiro mid sidaad oo kale caqli iyo xigmadu leh adigu waxaad ka sarrayn doontaa gurigayga dadkayga oo dhanna waxaa lagu xukumi doonaa si waafaqsan hadalkaaga oo anigu carshiga oo keliya ayaan kaaga weynaan doonaa markaasaa fircoon wuxuu yuusuf ku yidhi bal eeg dalka masar oo dhan ayaan kaa sarraysiiyey markaasuu fircoon gacantiisa ka bixiyey kaatunkiisii oo yuusuf gacanta u geliyey kaatunkii boqornimada oo wuxuu u xidhay dhar aad u wanaagsan silsilad dahabana qoortuu u suray oo wuxuu fuushisiiyey gaadhi faraskii labaad oo uu lahaa oo waxay hortiisa kaga qayliyeen sujuudda oo wuxuu ka sarraysiiyey dalka masar oo dhan markaasaa fircoon wuxuu yuusuf ku yidhi anigu waxaan ahay fircoon oo adiga la'aanta ninna gacantiisa ama cagtiisa kor uma qaadi doono ilaa dalka masar oo dhan markaasaa fircoon wuxuu yuusuf magaciisi u bixiyey saafnad facne oo wuxuu u guuriyey aasanad oo ahayd ina footifarac wadaadkii oon yuusufna markaasuu dalkii masar oo dhan u baxay oo wada maray yuusuf 30 sannadood buu jiray markuu hor istaagay fircoon oo ahaa boqorkii masar markaasaa yuusuf fircoon hortiisi ka tegey oo wuxuu wada maray dalkii masar oo dhan markaasaa 7 sannadood oo barwaaqada ahayd waxaa dhulkii ka soo baxay waxaad u badan markaasuu ururiyey cuntadii 7 sannadood baxday oo dalka masar oo dhan tiil oo cuntadii wuxuu ku kaydiyey magaalooyinka cuntadii beerihii ku wareegsanaa magaalo kastana isku meel buu ku kaydiyey markaasaa yuusuf hadhuudh aad u badan wuxuu u kaydiyey sida camuudda badda ilaa uu tirintii daayey maxaa yeelay waxay ahayd wax aan tiro lahayn markaasaa 7 sannadood oo barwaaqada ahayd ay dalkii masar ka dhammaadeen oo waxaa bilaabatay 7 sannadood oo abaarta ahayd sidii yuusuf yidhi dalalkii oo dhanna abaar baa ka dhacday laakiinse dalka masar cuntaa jirtay oo markii dalkii masar oo dham wada abaarsaday ayaa dadkii fircoon cunto ugu qayliyeen markaasaa fircoon wuxuu ku yidhi masriyiintii oo dhan yuusuf u taga oo wuxuu idin yeelo ama wuxuu idin yidhaahdo yeela oo abaartuna waxay ka dhacday dhulka dushiisa oo dhan markaasaa yuusuf wada furay maqsinadii oo dhan oo wuxuu hadhuudhkii ka iibinayey masriyiintii abaartuna aad bay ugu xumayd dalka masar markaasaa dalalkii oo dhammu waxay ugu soo safreen masar oo yuusuf bay ugu yimaadeen inay hadhuudh ka iibsadaan maxaa yeelay abaartu aad bay ugu xumayd dhulka oo dhan aynu sii wadno maanta ereyga ilaahay ayaynu sii akhriyaynaa qisada yuusuf way dheer tahay weliba iyadoo saas tahay in badan baynu ka boodboodaynaa laakiin aynu sii wadno bilowga cutubka 42 aayadaha 1 ilaa 9 haddaba yacquub waxaa laga hadlayaa marka dhulkii kancaan ee ay deganaayeen yuusuf iyo reerkiisii haddaba yacquub wuxuu arkay in hadhuudh laga helo masar markaasuu yacquub wiilashiisii ku yidhi waa yuusuf walaalihii weeye war maxaa midkiinba midka kale u fiirinayaa oo wuxuu yidhi bal ogaada waxaan maqlay in hadhuudh laga helo masar bal xaggaas u dhaadhaca oo halkaas wax inooga soo iibiya inaynu noolaanno oo aynaan dhimanin
markaasaa yuusuf tobankiisii walaal waxay tageen masar inay hadhuudh ka soo iibsadaan laakiinse benyamin oo ahaa yuusuf walaalkiis yacquub ma uu raacinin walaalihiis yuusuf bay benyamin isku bahaayeen oo wuxuu ahaa wiilka ugu yar yuusuf ka yar kumuu darin walaalihii waayo wuxuu is yidhi waaba intaasoo balaayo ku dhacda sidii walaalkii yuusuf oo kale markaasaa wiilashii israa'iil waxay yimaadeen inay wax iibsadaan waxay u yimaadeen inay wax iibsadaan iyagoo la socda kuwii yimid iyagoo dad badan la socda waayo abaartu dalkii kancaanna way ka dhacday yuusufna wuxuu ahaa taliyihii dalka isaguna wuxuu ahaa kii wax ka iibin jiray dalka oo dhan markaasay yuusuf walaalihiis u yimaadeen isagii oo intay u wada sujuudeen ayay wejiga dhulka wada saareen yuusufna walaalihiis wuu arkay wuuna gartay laakiin wuxuu isaga dhigay sidii nin qalaad oo intuu si qalafsan ula hadlay ayuu wuxuu ku yidhi war xaggee baad ka timaadeen oo iyana waxay yidhaahdeen waxaanu ka nimin dalka kancaan si aanu cunto u iibsanno yuusufna wuu gartay walaalihiis laakiin iyagu ma ay garan markaasaa yuusuf xasuustay riyooyinkii iyaga ku saabsanaa oo uu ku riyooday waa qiso cajiiba walaalayaal oo ilaahay inoogu dhammaystiray ereygiisa runtii qisada yuusuf oo aynu ka baranayno wax aad iyo aad maaha qiso dhacdo oo layska akhriyayo laakiin waxa weeye qisno sidaynu arki doono maantana inoole casharo ruuxiyana oo ilaahay wax inagu barayo maxaad ka fahantay wixii dhacay waxaynu arkaynaa yuusuf walaalihii oo imanaya oo u sujuudaya yuusuf ku hor sujuudaya isla sidii uu yuusuf ku riyooday muddo aad u horeysay yuusufkii ay nabcaayeen ee ay diideen ee ay doonayeen inay markii dambe dilaan ee ay iibiyeen ayay hortiisa ku sujuudeen yuusuf isla markiiba walaalihii wuu gartay laakiinse iyagii may garan waayo waxaa ka soo wareegtay muddo ka badan 20 sano ayaa ka soo wareegtay intii ay kala maqnaayeen casharkeena kan ku xiga ayaynu ku arki doonaa oo ku dhamayn doonaa qisada yuusuf waxaynu arki doonaa sida uu yuusuf marka dambe isugu sheegayo walaalihii inuu isagu yahay walaalkood yuusuf laakiinse ka waran walaal maanta darsigeena muxuu ilaahay doonayaa inuu inaga baro ama adiga kaa baro casharkan ama qisadan ku saabsan yuusuf iyo walaalihii ilaahay wuxuu doonayaa inuu ina baro in wixii yuusuf iyo walaalihii ka dhex dhacay ay sawir ama tusaale ama shabahayeen wixii ka dhex dhacay badbaadiyaha adduunka iyo farcanka aadam ama bini aadanka walaalayaal haddii ay tahay inaynu hal arrin oo ugu muhiimsan ka barano arrintan yuusuf ama qisadan yuusuf waxa weeye inuu isagu hadh ama sawir ama shabahaad u sii ahaa badbaadiyaha uu ilaahay soo diri doonay ee adduunkan u soo diri doonay oo ah ciise masiix casharkan waxaynu ka soo saari karnaa ugu yaraan 100 qodob oo tusaya ama dhacdo ama isbarbardhig oo tusaya in qisadan yuusuf ay tusaale ama shabahaad u sii tahay qisada badbaadiyaha uu ilaahay adduunka u soo diri doonay 1800 oo sano ka bacdi markaa yuusuf noolaa maanta waxaan idin tusayaa 3 arrimood oo ay qisada yuusuf ku shabahayso qisada badbaadiyaha oo uu tusaale ama wax noloshiisu waxyi ahaan u sii tusayso waxa ku dhici doona badbaadiyaha adduunka ama ciise masiix ka ugu horeysa waxa weeye waxaynu aragnay in caruurtii ama wiilashii ka waaweynaa yuusuf ay diideen oo ay dayriyeen oo ay xumeeyeen riyooyinkiisii daraaddeed isaga way naceen way caayeen way bahdileen xataa ilaa ugu dambeyntii ay walaalkoodii la dhashay ka iibiyeen sidii addoon kale sidaas oo kale markii uu badbaadiyaha adduunku yimi adduunkan dadkii waxay diideen badbaadiyihii iyo akhbaarkii uu waday ee injiilka labadaba isagii way caayeen way ku kacameen way silciyeen way
iibiyeen ilaa ugu dambeyntii ay ku qodbeen isku talaabta qodobka koowaad waa ka soo ekaansho qodobka labaad ee soo ekaansho waxa weeye in markii hore inkastoo ay diideen oo ay dayaceen oo ay si xun ula dhaqmeen oo ay silciyeen oo la xidhay haddana yuusuf ay saa u galeen walaalihii haddana inuu ilaahay waqtigiisii ugu talagalay uu yuusuf u doortay in uu waddanka masar oo dhan madax u noqdo oo dad qof kasta oo doonaya inuu ka badbaado abaartii dhimashada la yidhaahdo yuusuf u tag dadkii masaaridu markay fircoon u yimaadeen muxuu ku yidhi yuusuf u taga isagaa idin caawinaya isagaa noloshiisa idin badbaadinaya wuxuu u tago wuxuu idinku yidhaahdo sameeya sidaas oo kale ayaa badbaadiyaha dunida ee ilaahay uu samada ka soo diray uu leeyahay dadka dembiga leh ee doonaya inay dembigooda ka badbaadaan ee uu shaydaanku haysto u taga badbaadiyahan idin soo diray ka awooda inuu noloshiina ka badbaadiyo dembiga iyo shaydaanka iyo xukunka abadiyanka iyo naarta oo isaga markaad u tagtaan qalbiyadiina waxa uu ka buuxin doonaa jacayl farxad nabad iyo raali kaansho aad ilaahay ka heshaan marka waxa weeye labadoodaba inkastoo la hoosaysiiyey ilaahay baa sarraysiiyey ciise masiixna u doortay inuu bini aadamka ka badbaadiyo dembiga iyo shaydaanka oo uu siiyo nolol daa'imisa iyo xidhiidh fiican oo ay ilaahay la yeeshaan ta saddexaad ay isaga egyihiin waxa weeye mid aad iyo aad muhiim u ah waxa weeye in yuusuf walaalihii ay hoos tageen oo ay oggolaadeen xukunkii ama awooddii yuusuf ama oo markii dambe taladii yuusuf ay aqbaleen oo u sujuudeen iyagu si kale kuma badbaadi karin oo aan ka ahayn inay yuusuf awooddiisii aqbalaan oo ay hortiisa ku sujuudaan kii ay markii hore silciyeen ee naceen ee yaseen ee iibiyeen sidaas oo kale ereyga ilaahay wuxuu sheegayaa in badbaadiyaha kaasoo ilaa maantadan kuwa badani ay diidaan oo ay sharfi waayaan oo ay rumayn waayaan uu maalin maalmaha ka mid a soo noqon doono oo adduunka ku xukumi doono xukun xaq ah waxaa baybalka ku qoran in maalintaa uu carab kasta qiranayo inuu ciise masiix yahay badbaadiyaha in jilib kastana uu u sujuudayo in ay dhammaantood ogaan doonaan inuu isagu yahay ka uu ilaahay u doortay inuu noqdo badbaadiyaha iyo xaakinka adduunka marka walaalayaal walaal maanta haddaan ku weydiiyo adigu ma is hoos dhigtay ma aqbashay ma rumaysay badbaadiyaha uu ilaahay u doortay ama u soo diray inuu adduunka ka badbaadiyo xukunka daa'imiska mise weli waxaad ka hoos jirtaa xukunka shaydaanka waxaan ku odhan lahaa inaad aqbashid badbaadiyaha oo aad ciise masiixa nool ee ah ka imanaya ee noqonaya xaakinka adduunka inaad waqtintii goorigoor tahay aad u aamintid sayidkaaga iyo badbaadiyahaaga sidaa ayaad kaga badbaadaysaa xukunka ilaahay maanta halkan baynu ku joojinaynaa laakiin taa macnaheedu ma inaadan ka fekerin aayadihii aynu maanta soo akhrinay ilaahay ha idin barakeeyo oo ha idin siiyo fahan dheeraada oo qalbiyadiina ha u furo ereyga ilaahay waxaan idinkaga tegayaa aayaddan ku qoran ereygiisa kitaabka butriska labaad cutubka koowaad aayadda 19 oo waxaynu haysanaa hadalka nebiyadii sii sheegeen oo aad loo sii xaqiijiyey oo waad ku wanaagsan tihiin inaad u fiirsataan hadalka sida laambad meel gudcura ka ifaysa ilaahay hadalkiisa ha idinka dhaadhiciyey ereygii ilaahay ha idin siiyo badbaado ha idin soo hadeeyo waad mahadsantihiin ilaahayna ha idin barakeeyo